shaqo walba oo aynu qabanayno waxay leedahay laba waji. Waji waa wajiga camaliga ah oo aynu ficil ahaan u qabanayno. Hadday tahay salaad waxa la inaka rabaa inaanu weyseysano kadibna aan salaad u istaagno. haddii ay tahay xaj waxay tahay in xaj loo safro. haddii ay tahay in wax la bixiyo dhaqaale inaad soo qaadid ama xoolo aad siisid dad u baahan. balse waxaa jira waji kale oo ka muhiimsan wajiga isaga ah oo ah midka ku saabsan qofka niyadiisa. niyadu ma aha shay sahlan oo qofku uu niyadiisa wax iska dhaho, balse waxa ay leedahay dadaal ka xoog badan midda qofku uu ficil ahaan u samaynayo. qofkuna waxa la rabaa niyadiisa mar walba inuu ilaaliyo, uu ogaado meesha Ilaahay eegayo in ay tahay niyadiisa. mar walbana uu Ilaahay weydiisto in uu maaragtay niyadiisa ka dhigo mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baraxtiran. taas ayaa amalka la qabanayo oo kasta ka dhigaysa mid Ilaahay dhankiisa laga aqbalay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay. sida daraadeed waxaan isku dardaarmaynaa in aanu naftayada ku tarbiyano si joogto ah, waardiyana ka hayno niyadeena inay ahaato mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii u shaqaynaysa. xoolaha aad bixinaysid, cibaadada aad samaynaysid, mar walba maskaxdaada waa inaad weydiisaa shaqadan aan samaynayo lillaahi intee bay iga tahay. mar walbana aad xoogga saartid wax walba oo Ilaahay kuu dhaweynaya, camalkaagana ka badbaadinaya inuu noqdo mid ugu dambeyn fashilma Ilaahay dhankiisana aan laga aqbalin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.